ugu dambeyntiina waxyaabo fara badan oo la yaab leh ayaa ka dhaca qaar ka mid ah telefishinada iyo raadiyoyada marka waliba hawada si toos ah loogu jiro sida imika warkan aanu idin soo baahinayno kale oo si toos ah aanu idin ka soo baahinayno stuudiyaha iyaga magaalada Hargeysa waxyaabaha haddaba la yaab kale ee mararka qaar kood warbaahinta ka dhaca waxa kamid ah idaacadaha kale tusaale ahaan in ay telefoon u diraan qof ay doonayaan inay wareystaan oo deedna laga yaabo in telefoonkii qof khalad uu ku dhaco qofkaasina uu markaasi mararka qaar kood iskala wado idaacadii markaasi wareysiga doonaysay telefishinadana way ka dhacdaa oo arrimo fara badan oo la xusuusto ayaa kamid ah oo dadaan ahayn dadkii la doonayay markaa wareysi laga qaaday laakiin waxa soo dhan waxa isku fuuqsaday marka waalidku uu telefishinka si toos ah ugu jiro ee barnaamij ama war uu si toos ah hawada uga baahinayo ee deedna shaqada sida inta badan dhacdo oo ilmihiisa yar soo kaxaysto tan oo kala dhacda sida arkayseen ilmaha yar dan iyo muraad kama laha in hooyadii hawada si toos ah ay ugu jirtay oo ay war akhriyeysay ama umad fara badaniba ay hawada ka daawanaysay dadna ilmihii yaraa intuu iska soo socday buu yimi hooyadii dabadeedna waxaad moodaysayba siduu soo jeedinayay inuu leeyahay bal hooyo dadkan kale iska dhaafo aniga ila hadal dadna waxa khasab noqotay in sida caadiga xayeysiisoo kale la saaro oo dadna telefishinkii iyo kameradihii laga jeediyo inta ilmaha yar stuudiyaha laga saarayo laakiin garowshiyuu lahaa ilmaha yar waa 4 jir kaliya telefishinka hooyadii u shaqaysaana waa MBC oo dalka Mareykanka waxaan u maleynayaa hadiiba mar dambe ay soo kaxaysay ilmaheeda yar inay stuudiyaha ka fogeyn doonto oo ay ka taxadari doonto inaan taas oo kale mar dambe dhicin qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay wararkii caalamku ay kala socoteen telefishinka Universal stuudiyaha iyaga magaalada Hargeysa intaynu dib u kulmayno hadii alla yiraahdo waa anigu Cabdisalaan Hereeriya iyo asxaabtayda oo idin kaga tagayna nabadgelyo